maydhista gacmahaagu waa muhiim, balse haddii aad ka walaacsan tahay in ay wax kaa soo raacaan moobaylkaaga gacanta, kuma kaaftoomi kartid oo keliya dhaqidda gacmahaaga. haddaba halkan waxa aad ka baran kartaa sida ugu habboon ee aad u nadiifin karto telefoonkaaga gacanta. demi oo galkana ka saar moobaylkaaga. shirkadaha sameeya moobiladu dhammaantoodu waa ay ka digeen in kiimikooyin loo adeegsado nadiifinta moobilka, waayo waxa ay dhaawici karaan dahaadhka sare ee shaashadda moobilka. soo qaad tuwaal oo dhex geli biyo iyo saabuunta caadiga ah ee guryaha oo ku nadiifi oogada sare ee moobilkaaga, kana ilaali in qoyaan gaadho daldaloolada moobilka oo xataa kuwooda biyaha iska celiyaa u geysan kara waxyeello. ugu dambayn, ku qallaji moobilkaaga tuwaal ama maro kale oo nadiif ah. isticmaalka biyaha iyo saabuuntu waxa ay dili karaan fayraska iyo bakteeriyada, waxaana arrintaasi lagu tijaabiyey qalabka loogu tala galay cabbirka jeermiska. haddii aad haysato moobilada nooca iPhone Apple-ka ah, waxa aad ku nadiifin kartaa 70% isobarobal alcohol oo ah nooca loogu tala galay, lagana heli karo dukaamada iibiya agabka kombiyuutarada ama online ayaad ku iibsan kartaa. waxa kale oo jirta in moobilada qaar lagu nadiifin karo iyada oo la adeegsanayo ultraviolet, waa agab ku shaqeeya shucaac kiimikaad, kuwaasi oo moobilada lagu nadiifiyo waxyeello soo gaadhsiin kara, sida in ay midabkooda beddelaan. ogow mar kasta oo aad taabato moobilkaaga, khatar ayaad ugu jirtaa jeermiska. si aad uga hor tagto mar kasta maydh gacmahaaga, una maydh si qoto dheer.